Senatarkii hore ee ismaamulka Mandera Bilow Kerow ayaa si adag uga hadlay xaaladda amni ee ka taagan magaalada Mandera. Waxa uu farta ku fiiqay xiriirka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda Kenya iyo maamulka Jubbaland. Bilow ayaa sheegay in sanadihii u dambeeyay xiriirkaasi siyaasadeed uu sababay xaalado khatar ku ah shacabka Mandera, isla markaana uu dhaawacay qorshihii Kenya ay ku ilaalin lahayd nabadda iyo xasilloonida xuduudda. Xiriirka siyaasadeed ee Kenya ay la yeelatay Jubbaland wuxuu si weyn u wiiqay amniga dalka, gaar ahaan Mandera. Wax la aqbali karo ma aha in Mandera loo beddelo meel ay ku dagaalamaan ciidamada Soomaaliya, ayuu yiri Bilow Kerow. Senatarkii hore ayaa intaasi ku daray in shacabka Mandera marar badan ay la kulmeen dhibaato ka soo gaartay iska horimaadyada iyo xiisadaha siyaasadeed ee u dhexeeya xoogagga hubeysan ee ku hardamaya maamulidda magaalooyinka xuduudda Soomaaliya uu la wadaago ismaamulka Mandera. Waxa uu ku dhaliilay dowladda dalka inaysan mudnaan siinin daryeelka dadka xuduudaha ku nool, isla markaana ay ku fashilantay ka hortagga kooxaha hubeysan ee xuduudka ka soo gudba. Bilow ayaa ku baaqay in dowladda ay adeegsato siyaasad ku dhisan deris wanaag iyo iskaashiga nabadda ee ka dhexeeya labada dal. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu xusay in shacabka Mandera aysan u qalmin in deegaanadooda loo isticmaalo meel lagu dagaalamo, balse ay u baahan yihiin in dowladda ay ku dadaasho nabadda, horumarka iyo kaabayaasha dhaqaale si ay ula jaanqaadaan qeybaha kale ee dalka. Hadalka senatarkii hore ee Mandera Bilow Kerow ayaa ku soo aadayay xilli dhowaan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda county-ga oo uu ka mid yahay Gabane Maxamed Aadan Khaliif ay ku baaqeen in Mandera laga saaro ciidanka Jubbaland ee uu sheegay in fadhi ay ka dhigteen iskuulka BP1 Primary ee magaalada Mandera. Gabanaha ayaa sheegay in haddii ciidankaasi ku sugan halkaasi aan laga saarin, tallaabooyin ay qaadi doonaan